muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Kaahin oo muddo 7 sano ah ku noolaa dalka Denmark ee ku yaala qaaradda Yurub ayaa wuxuu hadda go'aansaday inuu isaga soo guuro dalkaasi isaga iyo qoyskiisaba waxayna dib ugu noqdeen magaalada Hargeysa oo ah meeshii ay ka soo hayaameen kahor inta aysan soo galin qaaradda Yurub. wuxuu sheegay in go'aankani uu qaatay 2 sanadood ka hor kadibna uu aaday dalka Soomaaliya si uu ugu soo sameeyo qiimeyn. Aabahani Soomaaliyeed ayaa caruurtiisa u soo dacwooday kadib markii uu tagay dalka Denmark waxayna halkaasi ku noolaayeen muddo 5 sano ah. Maxamed wuxuu dib ula soo noqonayaa qoyskiisa oo ka kooban 6 caruur ah iyo xaaskiisa waxaana sheegay in go'aankani uu gaaray kadib markii uu xaqiiqsaday in dalka Denmark uu yahay dal aan laga rabin muslimiinta inkastoo dad badan oo muslimiin ah ay ku nool yihiin. wuxuu kaloo hadalkiisa ku daray aabahaasi Soomaaliyeed waanu dareenay dadka wadankani degan inay ka soo horjeedaan dadka ajnabiga ah gaar ahaan muslimiinta sidaas darteed maadaama uu dalkeena nabad yahay waxaan go'aan ku gaaray ayuu yiri inaan Hargeysa u guuro. Mr. Maxamed ayaa sheegay in guud ahaan uu iska celiyay sharciyadii deganaanshaha ay siisay dowladda Denmark. sidoo kale isaga iyo qoyskiisaba ma aysan haysanin baasaboorka dalka Denmark balse waxay dowladda Denmark siisay waraaqad deganaansho rasmi ah oo ay ku joogi karaan dalkaasi. dhanka kale Mr. Maxamed oo la weydiiyay su'aal ahayd in haddii la siiyay sharciga baasaboorka Denmark uu iska sii joogi doono dalkaasi in kale ayaa bixiyay jawaab sida tan u dhaceysay haddii xitaa ay nagu yiraahdaan waanu idin siinaynaa sharciga baasaboorka Denmark muhiimad nooguma fadhido ayuu yiri sababtoo ah wadankani Denmark waxaa ajaanibta si toos ah loogu sheegaa inaan laga rabin mana doonayo inaan ku sii noolaado dalka Denmark. sidoo kale aabahaasi Soomaaliyeed ayaa sheegay in sababta uu isugu dayi waayay in Yurubta kale uu aado inay tahay in reerkiisa keligooda uu awoodi waayay inuu kaga tago dalkaasi cunsuriyiinta ah ee Denmark waxa uuna hadalkiisa ku daray haddii aan halkan keligood kaga tago qoyskayga waa ay dayacmi doonaan wadan kale haddaad tagtidna waa nolol cusub bilow iyo la qabsasho waqti badan qaadan doonto mana awoodi karo midaasi sababtoo ah waxaan haystaa caruur badan ayuu yiri. ugu dambeyntii aabaha qoyskaasi Soomaaliyeed ee go'aansaday in gabi ahaanba isaga tagaan dalka Denmark kuna noqdaan dalkooda hooyo ayaa yiri ma aysan jirin caqabad gaar ah oo isaga ama qoyskiisa ka soo wajahday dalka Denmark oo ku qasbaysa inay Denmark isaga guuraan iyo inay dib ugu noqdaan magaalada Hargeysa. sheekada qoyskaasi Soomaaliyeed ayaa maalmahani baraha bulshada ka noqotay sheeko aad loo hadalhayo mana ahan qoyskii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee go'aan ku gaara inay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo. Abdiraxmaan Atore, RTN TV, Nairobi. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.